xalay oo jimco ahayd Boston soo geliyay YouTube-ka qaybta community-ga aan leeyahay caawa oo jimco ah muuqaalada jeceshihiin Britol inaan idinku soo gudbiyo mid kamid ah su'aalaha ayaan soo qaatay oo ah Susan ina boqortooyo oo leedahay caadka indhaha fuula ka soo hadal caadka indhaha fuula waan ka soo hadalnay muuqaalada hore laakiin waxaan rabaa muuqaalka inaan idinku soo gudbiyo afar fikrado qaldan oo ka aaminsan yihiin dadka bulshada caadka indhaha fuulo mar kale waani waa taraxyaa ugu barteen muuqaalada ku saabsan indhaha ay arag maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay arimo markaa aan aniga soo xulay oo u arkay fikrado qaldan inay ka aaminsan yihiin caadka indhaha fuulo waa ku mahadsan tahay Susan ina boqortooyo su'aashan soo weydiisay marka hore caadka indhaha fuulo muxuu yahay caadka indhaha fuulo waxa weeyaan isha gudaheeda baliisha ku jirto oo daxalaysato oo iftiinka gudbi waayo waa sida ugu fudud oo lagu taariifin karo caadka indhaha fuulo marka muuqaalka waxaan rabaa inaan ku soo gudbiyo afarta fikrado qaldan oo dadka bulshada ay ka aaminsan yihiin caadka indhaha fuulo arinta koowaad dadka aaminsan ah isha meesha cadaanaysa inta xuubka hore isha meesha madow kale inuu haystaan dadka qaar laga yaabaa inay meesha madow kale cornea kale in muraayada hore isha ka cadaato laakiin ay ku qaldaan caadka indhaha fuulo ma ahan caadka indhaha fuulo caadka indhaha fuulo waa isha gudihiisa meesha baliisha gudaha isha ku jirto oo daxalaysanayso marka fikradaas waa fikrada koowaad oo qaldan oo si qaldan dadka aaminsan yihiin in muraayada hore isha ama xuubka hore isha oo cadaata in loola jeedo caadka indhaha fuulo marka dhaqtarka haddii ku dhahaaga caad ay fuuleen loolama jeedo in xuubka hore isha oo adiga aad taaban kartid in ay ku cadaatay fikrada labaad oo qaldan oo dadka bulshada ay ka aaminsan yihiin caadka indhaha fuulo ayaa ah in qofka oo wax badan akhriya ama mobilka isticmaalkeedu aad u badsado ama TV automobilka in ay sababi karto in indhaha ay ku cadaadaan waxyaabaha ee sababo indhaha caad fuulaan ama cataract loo yaqaano ma sababi karto inaad mobil ama TV ama isticmaal shaashadaha ama wax badan aad akhrisid kuma sababi karto inta badan da'da sababi karto daawooyinka qaar oo qofka isticmaala ka sababi karto laakiin midaan ma sababi karto fikrada saddexaad oo qaldan oo dadka bulshada ay ka aaminsan yihiin caadka indhaha fuula ayaa ah haddii hal il uu ku dhaco in uu isha kale u gudbisiinayo wax xiriira ma lahan haday ku dhacdana way ka madax banaan tahay inay isha kale ee qaaday in kale arinta afraad oo fikrad qaldan ayaa ah in caadka indhaha fuulo uu ka mid yahay sababaha aragga rido caadka indhaha fuula ama cataract kama mid ah sababaha ama laguma tiriyo inuu arag qaado waxaan rabaa inaan idinla wadaago mid ka mid ah sheekooyinka cajiibka oo tuulooyinka Soomaaliya ka dhacay in oday 20 sano wax ku dhow caad indhihiisa fuulo arag la'aan uu ahaa kadib la dhahay caadka indhaha laga qaadaya dhahay aragga Ilaahay iga qaada miya qof bini'aadan ii soo celinaya mar rabo marka waxyaabo fikrado qaldan dadka qaar oo kale diinta ama si qaldan u fahmay oo u baahan in laga wacyigeliyo caadka indhaha fuulo waa uuna baliish isha ku jirto oo daxalaysato oo markay daxalaysato kale sidaan oo kale noqonayso oo Ilaahay markii laga bedelna xataa loo gali karo baliil artificial ah ama gacan ku samaysa oo qofka si fasiix u arki karo haddii xitaa 30 sano uu arag la'aan ahaa oo caadka mar laga fiiqo wax yar oo 10 daqiiqo yar lagu fiiqo araggiisa oo dib u soo cisho karo marka kama mid ah cudurada indhaha ku dhaco aragga qaado sida biyaha indhaha ku furmo galkaas indhaha uu qaadi ka arag uu qaadi ka dib looma soo celi marka marnaba laguma tiriyo sababaha aragga qaado ama camoolnimada sababo arrimahaas aan ka soo hadalnay waxay ahayn fikrado qaldan oo dadka bulshada ay ka aaminsan yihiin caadka indhaha fuulo oo lagu ogaan karo kaliya baaritaano joogto ah oo dhaqtarkaaga indhaha uu ka qaadayo intaas ay muuqaalkan ku soo gabeynaa intaas aan soo sheegnay mid aad ka aaminsanayd caadka indhaha fuulo miyaa jir qaybta community nagu la wadaag idin rajaa caafimaad iyo indhafayo